Welcome back, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum warahmatullah wa shabab Rashid iyo mar kale video cusub. Marka koowaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan asxaabta nagu soo biirtay muddadii ugu dambeysay ee ku soo biirtay family-geenan filmmakers-ka aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waan idin hambaleynayaa soo dhawaadaan leeyahay waxaad doorataan meeshii idinku habboonayd ka korsan lahaydeen filmmaking-ka. So muddadii ugu dambeysay waxaa jira video tutorials oo soo gelin YouTube-kan soo post gareynayay kuwaas oo khusay editing-ka haddii noqoto Photoshop iyo haddii noqoto Adobe Lightroom. Marka dad fara badan baa codsaday in aynu bal tutorial ka sameeyno Lightroom-ka isticmaalkiisa waliba mobile version-ka xaqiiqatan waana si yar fudud baa wax fara badan maaha. Marka sharax yar oo fudud oo kooban oo Lightroom-ka sida loo isticmaalo mobile version-ka ku saabsan aynu bal isla eegi doonaa inagoo aad u fududaynayna oo sawir yar oo basic fududna ku edit gareynaa si aad concept uga qaadataan oo sawiradiina khaaska aad ku edit gareysan kartaan. Sidoo kale waxaan idin hayaa surprise waxaan idin hayaa hadiyad idinkaan idinku talagalay tolo maxay noqon doontaa soo hadda xiisaynayso waxaan ku leeyahay videoga ilaa akhrintaankiisa ku dhig oo daawo intaan video gal waxaan ka codsanayaa videogan inaad like saarto dad ka heshay sidoo kale aad subscribe to channelka haddaadan nagu soo biirin come on nagu soo biirta haddaadan hor nagu soo biirin notification bell-kana ha ilaabin inaad taabato si ay ku soo gaaraan notificationska videoska and weekly-ga usoo post gareeyo aad baad mahadsantahay so bal aynu isla eegno Lightroom-kan sida loo isticmaalayo mobile version-ka. Let's do this. Come on. All right, ladies and gentlemen. marka koowaad Lightroom-ka sa ugu dhufato aynu furno bal Adobe Creative Cloud balka ku qoran yani shirkadii sameysay marka koowaad anigu imika hore ugu install gareysnaa marka waxa weeyaan adigu marka koowaad soo shubato Play Store-ka waad ka heli kartaa Google ka tadcaad ugu qorto waad heli kartaa iOS iyo Android version labadaba uu leeyahay marka Play Store-ka waad ka heli kartaa magaciisa mid ku qori Lightroom mobile application ama Lightroom oo kaliya dad ku qorto ku soo saaray Lightroom-ka ka ugu sareeyana weeyaan calaamadiisu waa calaamad blue-ga aad arkaso haddii inta ka nimaadno marka koowaad soo install gareysato wuxuu sidoo kale ku weydiin doonaa inaad sign up ama sign in sameyso laakiin waxaad skips ka siin kartaa ama calaamada cross-ku ay ku soo bixi doonto haddaad u fiirsato waxa ku taala shaashadaada markaad hor hayso telefoonka dhankiisa bidix oo gifting-ka saraa ayay ku qoran tahay cross marka taas ku dhufan doonto haddaad u baahantahay inaad skip sameyso dibadna ku dhaafi doonaa halkan ku keeni doonaa haddii kalena wuxuu ku xiriirin doonaa Gmail-kaaga intuu in yar wareego dibadna ay bartan ku iman doonaa. All right khaanadaha yar haddii ku horeyno khaanadaha haddii ku horeyno all photos-kaas waxa weyn haddii ku dhufano waxaan arki karanaa inta sawir ee inoogu jira bartan ayaan arki karnaa sidoo kale people-ka halka ku qoran waxa weyn haddii uu account kugu xiriirsan yahay oo aad ku xiriirsan markii koobaad ayaad la wadaagi kartaa dabeedna sawirada dadkaas halkan delete-ku wuxuu ku qoran yahay sida trash-ka calaamad dariba ka muuqato waxaad ka delete gareysay marka haddaan laba siyaabood baa loogu soo diri karaa sawirka inaad tiraahdo new item dabeedna ku raado folder samee ama album oo dabeedna soo wada qaado dhowr shay iyana calaamadeeda balaaska taabato dabeedna sawirkii uu ku soo furo marka imka calaamadeeda balaaska aan taaban marka click ayaynu siin doonaa sawirkan waa yahay waxa weeyaan sawir landscape oo aerial shot ah dabeetana sida halka arkaysaan yani de wax fara badan oo laga badbadalayo waxyaabo fara badan oo aynu soo nooleeyno yani colorskiisa xoog muujino male waska normal sawir yar normal weeyaan marka yani waxaan doonaynaa inaan ku fahno bal horta soo shaqeeyo khaanadahan Lightroom kama sida loogu hagaajiyo waxaan ku sheegaa marka hore sawirku inuu laba qaab leeyahay labada qaab ee uu leeyahay waxa weeyaan color grading iyo color correction halka uu video sidoo kale uu ka leeyahay correction iyo grading ama mesela inaad marka hore kaladhada saxdo correction waxa weeyaan inaad kaladhada marka hore saxdo oo dabeedna wixii yani over exposure ama saacad xoog ugu badan aad si normal ka dhigto wixii madowna aad normal ka dhigto aad ku habayso oo dabeetana hadhow tole aad colorka qaybaha colorka aad u gudbi karto ee stepta labaada color grading-ku waxa weeyaan kaladhada aad u baahan tahay inaad soo muujiso kaladhada aan u baahnayn inaad hoos u dhigto marka labadaas siyaabad buu leeyahay marka waxaan ku horeyn doonaa khaanadaha ugu horeeya kuwa ku jira ee ah auto-da haddii imka ku dhufto wuxuu isku ka dheelitirayaa lighting-ka kala duwan iyo iftiinada iyo waxyaabahaas ayuu ka dhigayaa sawir normal ah imka waad arkaysaa sidoo markii hore waa before iyo taasna waxa weeyaan after-kiisa marka yani waxaad heshay meel aad ka bilaabi karto imka editing-kaaga. All right khaanadahan yar ee crop-ka waan garanaynaa inaad crop-ka aad ku samayn karto intaad u baahan tahay oo dabeedna aad khaanadaha kulba adigu intaad ugu tala gashay sawirka aad muujinayso taa waan naqaanaa profiles-kan waxa weeyaan waxa ku jira filterro yar oo caadi sida ay ugu jiraan oo kale waxyaabaha kale wax lagu edit gareeyo sida ugu jiraan application-ada kale ay halkan filter ku jiraan filterradaas marka ka u baahan tahay dooran kartaa dabeetana hadhow toolad dabeedna light-ka saan ahaan imka haddaad mid doorato hadhow toolad marka awood u yeelan karaysa inaad qaybta color-ka inta tagto adoo kan isticmaalaya yani filterkan adoo isticmaalaya inaad kalarada aad u baahan tahay aad ka reebto kuwa doontan aad qaadan karto taasina waa option marka profiles-kan waxa ku jira
يعني كالادو لسي سميي ayaa ku jira oo aad qaadan karto oo dabadna isticmaali karto waayahay haddii aynu u nimaadno qaybta ku xigta oo light ah waa halka aan ka bilaabo weeyaan aniguna editingkayga imika automatic baynu soo taabanay dabadna isaga isugu keen dheeli tiray oo inooga dhigay sawir normal oo yani kaladada iftiinku aanu xoog u badnayn meelaha madmadowna ay iska normal yihiin marka autodii aan soo taabanayba ayaa sida looga dhigtay laakiin haddii aanay auto aadan taabsanin adaa loo baahan yahay inaad habayso oo marka hore correction ka saxdo halkan ugu horeysa qaanadaas waxa weeyaan waa exposure-ka oo sidaan ogsoonahay waxa laga xukumaa waxa weeyaan light-ka iftiinkaaga sawirkaagu intuu leekaanayo ayaa laga xukumaa contrast-kan isagu waxa weeyaan in uu isku soo ururiyo shadows-ka iyo highlights-ka oo dabadna resin-ka yara dhigo highlights-kan waxa weeyaan meel kasta oo iftiinku xoog ugu dhaxeeya cadceedu in ay noqoto iftiinka si yaro soft iyo wad moodo in maracad ama shay cadceed lagaga xidhay oo cadceedda iftiinkeedu aan xoog u soo gaarin si yaro khafiif ku soo gaarayo in halka meelaha cadcad u fiirsada haddana ka dalaco xoog u cadaansa haddana khafiifiyana si yaro fudud ayuu khafiifisa qaybta shadows waxa weeyaan meelaha hadhka inuu xoog muujiyo oo midowga dhigo waxyaabaha kale ee kaladada ee midowgooda dhanka midowga xigana inuu kor u dalaco shadows waa intaas white-iskuna waxa weeyaan inuu si yaro oo ka dhigo khafiifa oo indhuhu eegi karayaan ayuu ka dhigayaa white-iskaasina yani wax kastoo cad ayuu xukumaya white-ku marka ama hoos bad u dhigi iftiinkiisa mise kor baa u dalici waxay isku dhow yihiin exposure-ka marka exposure-ka iyo white-iskaas iyo highlight-iskaas waxa ay ka shaqeeyaan curve-ka qaybtan calaamadihiiba ka shaqeeyaan saddex meelood ka shaqeeyaan qaybtaasina waa qaybta midtone-ka la yiraahdo ee shayga resin-kii wax ka dhigaysa qaybtana waa qaybta shadows-ka dan doono madaweyni hadan doono cadaynaya marka saddexda qaybood ayuu leeyahay curve-kuna alright marka qaybtaas waxa weeyaan shadows-kii iyo black-iska ka shaqeeya shadows-ka iyo black ayaa labada khanadood ka shaqeeya halkan waa midtone-kii kana waa exposure-ka iyo white-iska ama exposure-ka iyo white-iska intaas waa halkaas mid ka shaqeeya marka adigu curve dhimka ha isticmaalin laakiin sa as a basic ahaan intaan u baahnay inaad isticmaasho ee aad isticmaalkiisa badsa waa intan alright khaanada markaynu ka nimaadno waxaynu geli doonaa khaanada kaladhada halkan waa white balance-kii yani xilliga sawirka la qaaday iyo vibe-ka uu muujinayo yani light-ku ninka tusaale ahaan waxa weeyaan dhan qabowga waxa weeyaan sidoo kale yani kulayl labada kulaylka iyo qabowga kala sheegaan waxa weeyaan temperature-ka halka ay ku qoran tahay temperature-ka haddaan dhanka iyo bidixda u jeedo blue bay noqonaysaa waxaanad sheegaysaa inay tahay si yaro dhaxan oo kala ama base xilli qabowga oo kala waana cadceed xoog kulay haddana dhanka u celiyana waxaad dareemaysaa inuu orange noqday oo waxa weeyaan dhanka kalarka laga qaato inuu shaygaas meeshaas meel kulul tahay vibrance-kuna kaladhada qaar ayuu kor soo dalacdaa laakiin overall yani sawirka oo dhan resin kama wada dhigto kaladhadu biyadu ay resin ka dhigaysaa laakiin haddaan saturation ka taabano every color kasta ilaa iyo xitaa iftiinka cadceedda ayuu gaadhayaa dabeedna kalarka ugu badan ee uu ka kooban yahay sawirkaagu ayaa xoog soo baxaya marka kalarka ugu badan ee uu ka kooban yahay sawirkeen waxa weyn orange haddii aad doonayso inaad halkiisa hore ku celisana dib u celi ilaa iyo intuu ka noqonayo zero kana ilaa iyo intuu zero ka noqonayo لازم ينسبه ويان -1 kaas waa normal marka waxaan isku dayi doonaa imika inuu temperature-ka dhanka bidixda u celino inuu dabeedna doonayno ka dhigno in yaro yani qabow oo kale ka dhigno sababtoo inta badan ma xiiseeyo anigu midabka cas alright qaybtan waa qaybta grading-ka imika u geli mayno iyo sidoo kale dabaqad bay saaraysaa sawirkaaga oo waxa weeyaan si yaro advanced weeyaan marka intaan iskaga nimaadno ayaynu eegi doonaa qaybta mix-ka ay ku qoran tahay qaybta mix-ka ku qoran tahay waa qaybta kaladhada sawirkaaga go'aaminaysa ay ku wada jiraan haddaynu baahannahay casaanka oo kale kor baynu dalici karnaa haddaynu doono hoos baynu dejin karnaa luminous-kaasina waxa weeyaan in uu yani sawirkaaga casaankaasi uu noqdo imika tusaalaan khaanada casaanka oo kale in uu noqdo mid resiina ama inuu noqdo mid yaro khafiifa labadaba waxa go'aamaya luminous-ka resiinka isagoo ah oo aynu saturation-kii ku badinay ayaad haddana sii dareemaysaa inuu sii noqday jaamud oo kale haddaad luminous-ka aad taabato qaybta ku xigta waxa weeyaan qaybta yare orange-ka haddaynu ku xigsiino qaybta horta hue-ga ku qorantay waxa weeyaan sida niisoo sheegay waa dabaqadii yani waxa weeyaan dabaqadii ka sarreysay kaladhadaada ee saa'idka ahayd ee qaybtii hore tintiga ahayd marka imika tintigu waxa weeyaan kaladhadan oo dhan ayaa ku wada jira laakiin waxa weeyaan waa dabaqada sare ayuu yani bedbedelayaa laakiin se imika hue-ga waxa weeyaan hue-ga haddaan taabsado casaanka midabka casaanka ama orange-ka oo kala
hiyugiisa dabaqadiisa kaliya ayuu saameynaya ama saameynaya imka dabaqada hadan dhaqdhaqaajiyo hiyuga ma saameynayo kala dhaban kana ma saameynayo kala dhaban kala aqtarkoodaas u baahanayaan sidaas u baahanayaan marka dad firsada aqtarka taas u baahanaya laakiin sa meelaha kale oo dhan ee orange ku jiro ayuu bedbedelaya. Alright, haddaynu taa ka nimaadno qaybtan waxa weeyaan qaybtii iyaduna waa huruudii oo kale, huruudina sidaas oo kale ayaad samaynaysaa. marka imka sawirkan haddaynu si yaro degdeg u dhiggarayno waxaan isku dayi doonaa inaynu khafiif ka yara dhigno qaybta orange-ga bes qaybta orange-ga aan khafiif ka yara dhigi qaybtan muxuu ahaa akhtarka ana dhanka iyo midigteenu yara riixi doonaa in yara saturation aan ku yara dari doonaa. marka geedahan orange-ga sidaan in yara akhtar uga dhigno qaybta huruudda baynu ku noqon doonaa ilaan huruud iyo akhtar buu ka kooban yahay geedahan iyo qaybta huruudda baynu dhanka iyo midigta u geyn doonaa si akhtar iskugu bedesho dabeedna akhtarkana rasiin baynu kasii kala dhigi doonaa. u fiirso rasiin xooga kama inaan dhigin laakiinse waxa weeyaan in yaro ayaan ku darnay marka beforeki marka hore saas u ahaa imikana waa waxa weeyaan aftarkii. Alright, markaynu taa kaga nimaadno waxaan tegi doonaa qaybta effectska waxaan ka isticmaalaa clarity-ga يعني إنه شيء يعني شارب نقطة dhinacyada inay sharp noqdaan u fiirso hadda imka saar wuxuu noqonayaa si chubby oo kale oo yani aan sharp ahayn dhinacyada girgirada oo kale laakiin saa markuu noqdo clear buu sii noqonayaa. sidoo kale sawirkan waa 4K drone aan ku qaaday marka mar walba sawirka aad ku qaado yani HD iyo 4K iyo cabirada kala duwanida way kala effective fara badnaanaya markaad aad doonayso inaad edit garayso ama sharpening iyo waxyaabaha aad ku sameynayso. Alright, vignette baynu yar samayn doonaa si aynu yani focuska qofka daawanaya aynu uga dhigno inuu intan daawado inta gudaha uu daawado laakiin dhinacyada in yar vignette ka sameynaa haddaynu dhexeyska yara taawanana in yar baynu doonayna inuu rasin ka sii dhigno. marka haddaad u fiirsatay marka hore sidaas u ahaa imkana waa sidaas. Alright, sidoo kale sharpening-kii ayaan wax yar ku yara dari doonaa si uu sawirku dhinacyadu sii adkaadaan. noise reduction-kana waan isticmaalaa hadda waxaan idiin sheegayaa inta badan intaan isticmaalo anigu si aad editing-kiina imika u aragtaan sidoo kale aad uga qaadataan idea-na. marka hadhow toole adaa isku dayi doona bal inaad inta kale discovering ku samayso sababto ama hantigii kama dhammaanno haddaynu isdhanaa mid kasta sharax. marka basically anu intaan isticmaalaan idinka sheegayaa iyo inta dee basic-ga ah hadhow toole adaa isku dayi doona bal in badan sii daba gasho aad sii yara raadiso. marka qaybta noise reduction-kana waan isticmaalaa. noise reduction-ka waxa weeyaan marka uu shucaac kugu badan yahay ama isagu uu ku badan yahay sawirkaaga ayaad noise reduction-ka taabato ayuu ku dhigayaa si yaro khafiifa oo aan inta badan aan shucaac ka muuqanin wax in yar ka dhimaa inta badan. marka kan noise reduction lagama baahna inta uu ahaa automatic uu ahaa baynu iskaga deyn doonaa. kadibna sawirka marka hore sidaas uu ahaa imikana waa sidaas maybe little bit baynu ka yarayn doonaa vignette-ka markaas يعني aad buu u fudud yahay isticmaalkan Lightroom-ku aad buu u fudud yahay qaar far badan oo application-ka kale oo far badan oo ka adag baa isaga jira. marka waxa loogu talagalay yani dadka aan inta badan awood u helaynin mar walba ama aan waqti u helin inay mar walba ay yimaadaan يعني meesha ugu dhow ay computer-kooda furaan oo dabna edit garayaan. waxa loo soo sameeyay shirkadu waxay soo sameysay qofka isticmaalaya ee telefoonkiisa iskaga sawirka ku qaadanaya ee dabna doonaya inuu social media ku soo post gareeyo inuu degdeg ugu edit gareeyo oo uu miss garaynin ama aanu يعني كتجين فيلكي والله يعني Lightroom كعادي still سوى تلفونك استعماله أيوه هيجين كريا أو صوص يا صور قرب بدن سيدا أنت بدن عاد أركتين إن صوص صنايع أما بدك كلا صنايع. مركز سيداس أيان أنا وأوديت كريا صور هذا أنا ما استعماله Lightroom كبيسيكالي أنت مهم سنة استعماله أنا وين تاني دي صور شيء أنت أيان أنت بدن كاستعماله صور كي أمر كان وأوديت كرينا يوم سيداس أيان مركز أدونا أوديت كرين كريسا أدوه استعماله Adobe Lightroom mobile application. And there you have it. سيداس أيام مركز الله استعماله Adobe Lightroom mobile application. That's it. وين تسوي كليبا؟ أنا ما تدخل خلاص. هاري حين نومكس وحبيت اسمه كان هاربا. باي ده. هذه سويسة. هذه دي ميا. أوكي. أسكت هلا يا. هذه الربا إن أنا دين لو ذا أو أنا دين سيو. ده أنت بدنا تانو واحد حولها ندين صوف فضية. marka hadii darbiina la wadaago waxa jira sidoo kale dad fara badan oo iyaguna soo codsaday sidee loogu sameyn karaa Tilan Orange-kii aan ka soo hadlay mar labaad haddaan soo daawan labada video waa laba video kan ka horeeyay oo Tilan Orange-kan ka hadlay sidee loo achieve karayaa ama loo gaadho ama loo sameeyaa. marka haddaan daawanin
xaga saran ku soo dhigay soo daawo waxaan isticmaali doonaa oo aan idin soo sameeyay presets wax loo yaqaano ama base filter anigu aan soo sameeyay shako brush ahaan oo teal and orange marka waxaan ugu talagalay mobile application ka Lightroom ka cid isticmaalaysa presets kaasna completely waa free waxaad ka heli doontaa description ka waad soo download garaysan doontaa waxaana samayn doontaa inaad copy ka samaysato kadibna sawirkaad u baahan tahay aad ku base garayso teal and orange kana saasoo kugu noqonaya markaas yaro degdegeeda laftarkeeda aynu eegno markaad soo dejisato yani presets kan aan soo dhigay description ka ee aad download ka ku dhamayso halka sawir ayaa ku furmi doona halka sawir markaad ku furto ee uu kugu soo dhaco mobile-kaaga dhexdiisa halkan caadiga ee plus taas mad ka soo dari doontaa kadibna sawirka aad u baahan tahay plus taas uma taaban doon markaas isagoo raw ayaad aad oran doontaa oo aad ku soo dari doontaa alright SRTL and Orange preset waxaan preset yani aan soo sameeyay oo isagu gaar u ah oo leh teal and orange ka ka soo hadlinay kadibna aad copy siinayso oo aad dabeedna sawirka kale paste ku siinayso marka aad furto file-ka ama wasa sawirkan ay ku dhex jiraan kala dhisku kadib calaamadda yar saddexda dhibcood ee gifting-ka midig ee telefoonkaaga shaashadiisa ah ayaa taabsan doontaa waxaad oranaysaa copy setting copy marka tiraahdo calaamadda yar tigta waxa saari doonta toolska kadibna waxaad oran doontaa calaamadda yar saxda uu ku koobiyay waxaan ku tijaabinaa labadan sawir kaas oo sidoo kale magaalada aan ka qaaday habeen rabda iyo hargeysa iyo kan kale oo famous oo aad aragtaan inta badan ayaan ku tijaabinaa marka imka kan hadaynu ku tijaabino sidoo kale calaamadda yar saddexda dhibcood ah inaan taabsan haddana halkan waxaa inoogu soo biray paste setting talona ama account doona ila eega 3 2 1 boom how cool is that mashallah aad buu qurux badnaaday oo kale this is before this is an after this is before this is an after alright simple is that marka haddana sawirka kala gasho ee isleedahay bal ku tijaabi isaga laftarkiisa nooc uu noqon doono isla sidoo kale waxaan ku wari saddexda dhibcood ee midigta ayaa taabsan doontaa shaashada kadibna waxaad ku dhufanaysaa on paste setting automatically wish kugu bedelaya wow and there you have it marka kala dhiska adigu aad u baahan tahay sida caadigeed inta badan baynu naqaano ayaad ku day doontaa inaad yargarayso ama aad khafiif yani ka dhigto sidoo kale qaarna aad halkan loo isticmaalaya qaybta wilba color disk loo isticmaalaya mixigaas ayaad ku day doontaa qaarna inaad hoos u dhigto qaarna inaad kor soo dalaacdo adaana taa ikhtiyaarka u leh marka waxa laga yaabaa sawirada qaarna aanu sidan oo kale markaaba aanu soo qabsanin oo aanu yani perfect ku noqonin waxa laga yaabaa qaar fara badan marka aad saa ugu dul samayso inuu yani isbedbedelo oo yani sidaan markii hore aadan ugu talagelin uu noqdo laakiin waxa loo baahan yahay adigu kalarada isku dheeli tirto oo aad ka dhigto kay aad u baahnaad mar walba badanaana waxyaabaha habeenka imka sawiradan iyo qaar kale mid haddaan ku dul dhufto oo soo baxaya ogsoonowna presetsku mar walba waxa ay ku soo baxaan sawirka marka hore aad qaaditaankiisa soo hagaajisay maxaan ka wadaa yani sawirka marka hore hadda aad soo qaaday si kaleera oo yani quality-giisa aad ilaalisay ama se shadowska iyo highlightska iyo cadaanka iyo waxyaabaha siro fiican oo isku habaysan aad soo qaaday automatic buu colorkan ugu dhacay laakiin sawirka marka hore hadduu ahaa mid yara liitay hadduu ahaa oo aan fiicnayn waxaana waa kala dhaco sawirka markii horeba aan quality lahayn quality fara badan ma sii yeelan oo kala dhadana hadhow kaaga waali doonaa markaasaas aad u samayn karaysaa teal and orange ka aad isticmaalaya sidoo kale mobile-kaaga and there you have it mar labaad marka saas ayaad ku samayn kartaa teal and orange sidoo kale aad isticmaalaya Lightroom mobile application ka sidoo kale waxaa jira presets aan hore u sameeyay oo aan sameeyay 2020 January aan soo galiyay oo kuwaas iib ahaa marka toban bay ahaayeen presets pack bi ku wada jireen gabigoodaba marka description koodna wala socday ma sha Allah dad far badan baa iibsaday marka edition koodii koowaad uu dhamaaday marka saxaabta sidoo kale ku hadda jeclaan lahayd inaad hesho igala wadaag barta commentiga in edition koodii labaad ee 2021 ka aynu soo celino toban xabo ay hayn oo package kooda jira sidoo kale ha ilaabin markaad filterkan isticmaasho ee hadda tolo soo post gareynayso in aad igu soo tag gareyso ama aad igu soo mention gareyso IG-ga si hadda tolo aad chance u hesho inaan ku soo feature gareeyo marka aan soo celiyo 10 kan presets ee Lightroom ka ah oo hadda tolo adigu aad ku hesho as a free sidoo kale IG-ga laftarkiisa soo follow garee inta badan dadka ma hadaan soo follow gareeyo laakiin halka waxaan soo dhigaa waxyaabaha shaqadu behind the scenes-keeda ama bas si u dhacayso inta aan YouTube ka soo gelin inta ka soo follow gareysan aad bay maadan tahay marka haddii aadan igu soo follow gareynay igu soo follow garee waxaad heli doontaa wax far badan oo ku cajibiya aad baad maadan tahay hay'adii ilaabina subscribe channel-ka tiraado sidoo kale aad like saarta video-gan hadda ku cajibiyay comment-kina aad igu wadaagto waxyaabaha afkaartaada ah aad baad maadan tahay waa shaqo barashadeeda leh peace